بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا صاحب يا halkani waa qaranka TV bartaan ku leenahay Facebook iyo YouTube ciidamada TPLF oo jiray isla markaana wuxuu sheegtay ciidamada federaalka Ethiopia iyo ciidanka axmaarada ee ku sugnaa galbeedka gobolka Tigray dagaalada qaraar oo saacadihii la soo dhaafay ka soconayay gobolkaasi iyo ciidamada TPLF oo horumar weyn gaaray iyadoo xabadii isniintii bilaabatay la soo warinayo maanta oo ah maalin khamiisa in ay weli sii dhacayso isla markaana aaga galbeedka gobolka Tigray ay weli dagaalo culus ay ka soconayaan maxaa kala socota duulaanka weyn ee ay qaadeen Tigray si ay u nadiifiyaan galbeedka gobolka Tigray isla markaana ay u furaan xuduudda saddex xagalka ah ee ka dhaxaysa Ethiopia, Sudan iyo Eritrea ayna u jiraan ciidamada ku sugan gobolkaas kuwaas oo barakac xoogan u geystay shacabka gobolka Tigray kuna kalifay inay gaajo iyo macluul ugu baaba'aan xeryo barakacyaal oo ku yaala hareeraha magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray galbeedka Tigray daawadayaal waxa uu dhacaa dhinaca ama uu xuduud la leeyahay dalalka Sudan iyo Eritrea waxa gobolkan ku sugan in muddo aba waa inta huruudda gobolka Tigray marka la eego waa ay tusi doonaa khariirada maapka waxa in muddo aba ka talinayo ka ariminayay ciidamo kumayaal ah oo 100,000 kor u dhaafaya kuwaas oo isugu jira ciidamo federaal iyo ciidamo axmaara webiga lagu magacaabo Tekeze ayay ka soo gudbeen ciidamadu webigu dabcan waa webigan gobolka mara hadii aad fiirisid aaga Walkayt iyo daawadayaal tasagada iyo dhinacan oo dhan waa laga haystaa ilaa Humera oo dhanka Sudan xigta ee kafta Humera dhulkaas oo dhan waa laga haystaa Tigray inkastoo hadda la soo warinayo inay durbaba ay qabsadeen magaalooyin aaga Telemet ayaa dagaalo aad u adag ay ka dhacayeen saacadihii la soo dhaafay iyadoo dagaaladuna ay ku gacan sareeyaan ciidamada TPLF kuwaas oo hubya saanad fara badan ka furtay sidoo kalena gumaad u geystay ciidamada Ethiopia dhanka cirka waxa ka duqeynaya ciidamada Tigray diyaarado droonooyin ah laakiin ma celinayaan maalmihii la soo dhaafay ayaa la arkayay qulqulka ciidamo ka tirsan ciidanka Tigray kuwaas oo webigan Tekeze dheer ka gudbaya buundooyinka ku yaala sidoo kale waxa dagaalku uu ku faafay aaga magaalada Mijra iyadoo oo TPLF maalmihii la soo dhaafay ay digniin iyo baaqaq waaweyn ay u dirayeen Ethiopia gaar ahaan Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa BB inay markaasi joojiyaan cunaqabateynta godoominta iyo dhibaatada ay ku hayaan dadka reer Tigray laakiin waxay u muuqanaysay arintaasi in ay markaasi iska dhagatirayeen xukuumadda uu hogaaminayo Abiy Ahmed oo ay ku diganayeen haddii aad maapka eegtid waxa arkaysaa ciidamada Ethiopia halka ay ku sugan yihiin waa dhankan jaalaha ah ee geeska soo ka soo xiga halka ciidamada TPLF-na ay dhulka intiisa kale ay gacanta ku hayeen haddase waxay rabaan inay guud ahaan gobolka ay qabsadaan oo galbeedka Tigray ay qabsadaan galbeedka Tigray waa ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee dadka reer Tigray ay ku noolaayeen haday noqoto beeraha haday noqoto warshadaha dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha gobolkani waxa uu markaasi gobolka Tigray ay ku yaaleen galbeedka gobolka Tigray waana cuuriyaamin loola eegtay dadka reer Tigray markii loogu talagalay gobolkan in laga haysto ama maamulka Tigrayga in laga haysto galbeedka gobolkooda sida hadda muuqata reer Tigray waxay ku dadaalayaan sidii ay gobolkan u qabsan lahaayeen waxaana jihada dagaalku u yahay mid ka duwan midkii aynu soo arkaynay dhamaadkii 2020kii 2020kii iyo 2020kii oo dadka reer Tigray hadda iskama eegayaan dhabarkooda dambe dhanka Eritrea col kama jiro hadda waxay eegayaan oo kaliya waa in ay kiciyaan isla markaana ay ka adkaadaan ciidamada Ethiopia iyo ciidamada axmaarada ee garabka siinaya waxaana la aaminsan yahay inay si fudud uga adkaan doonaan durba goobihii dagaalku ka dhacay waxa gacanta ku haya ciidamada Tigray aaga Telemet waxa la soo warinayaa in Tigraygu ay boqolaal ku dileen boqolaal kalena ay ku dhaawaceen inay jirto maxaabiis ayaa la soo warinayaa walow ay ka gaabsanayaan Tigraygu inay soo bandhigaan guulaha muuqda ee dagaalka ay ka gaarayaan rasaastii saanada Tigrayga ayaa la aaminsan yahay inay ka helayaan Eritrea, Masar iyo sidoo kale meelo kale oo fara badan ayadoo oo markaasi dagaalku uu hadda ka duwan yahay dagaaladii hore aan u arki jirnay sidoo kale Sudan iyo Ethiopia xiriir ahaan isuma wanaagsana haddii gobolka Tigrayga ee xuduudda Sudan la leh galbeedka Tigrayga ay la nadiifiyana waxay TPLF heli doontaa awoodo iyo sidoo kale taakulo ka weyn inta la qiyaasayo
waxaana markaasi dagaalku uu u soo fidi karaa dhinaca gobolka Axmaarada iyadoo jihada dagaalkuna uu si dardar leh isku bedeli karo. Abiy Ahmed waxyaabihii Tigray uga adkaaday ma ahayn diyaaradihii droonooyinka ahaa ee awoodda ugu weyn ee Tigrayga celinaysay waxay ahaayeen awoodda ciidanka Eritrea kuwaas oo mar walba dhabar jabin ku sameynayay marka ciidamada TPLF ay horumar dagaal sameeyaan. hadda Eritrea iyo Ethiopia ayaga ayaa markaasi isugu jira xiisad weyn ayaa ka dhaxaysa oo ayaga ayaa dhufay isugu jira bale Eritreanku hadda waxay si weyn u garab istaagi doonaan ciidamada TPLF oo waxay sameysteen xulufo isla markaana waxa ay hadda isu diyaarinayaan sidii uga adkaan lahaayeen taliska Abiy. inta badan gobolka Tigraygu kuma hayso dowladda federaalka Ethiopia gacanta oo waxa ka taliya maamulka ku meel gaarka ah ee Tedesa Wareda uu hogaamiyo ee gobolka Tigrayga madaxda ka inkastoo oo laga jartay dhammaan waxyaabihii dowladnimadu ay ku shaqeynaysay sidii kabkii miisaaniyadda iyo sidoo kale taakuladii sahaydii iyo wax walba uga imaan jiray dowladda dhexe Ethiopia si loo sii godoomiyo oo gaajo loogu dilo shacabka reer Tigray. carada ka dhalatay shacabka reer Tigray ee la xasuuqay isla markaana macluusha ee gaajada ugu baqtinaya xiriyaha barakacyaasha ee magaalooyin dhowr ah oo ay ugu weyntaa magaalada caasimadda ee Mekelle ayaa soo dedejisay dagaalkani waxaana ay markaasi rabaan sida ay TPLF sheegtay inay gabi ahaanba galbeedka Tigray ka xoreeyaan Axmaarada isla markaana ay soo galiyaan dadka shacabka ah dhulkii laga raray agaga Walkayt Homera iyo gabi ahaanba beerihii ku yaalay halkan dadkii ku sugnaa waa la soo jafay oo iyaga oo gaajo oo barakacyaal ah ayay ku sugan yihiin daawadayaal saaxiibayaal meel duleedka magaalada Mekelle ah muuqaalada laga soo duubayna waa kuwa naxdin xambaarsan. Abiy Ahmed wuxuu ugu talagalay dadka reer Tigray in uu gaajo ku dilo iyo dhibaatooyin kale oo markaasi aan xisaab lahayn hase yeeshee hadda waxaa muuqata in cawaaqibka wixii uu beertay uu guran doono. Axmaarada ayay dhowr jeer uga digeen in ay gobolkooda isaga baxaan si gaara maleeshiyaad ka barbar dagaalamaya ciidamada Ethiopia iyadoo waliba Axmaaradu ay ka tirsanayso Ethiopia oo ay jabhadda Fano dagaalo culus kula jirto dowladda Ethiopia walow jabhadaasi lagu tilmaamo inay tahay mid jilicsan marka la eego horumar la'aanta la taaban karo ee ka sameeysay deegaanada Axmaarada oo ugu yaraan xataa ay ku guulayso waayeen inay si dhameystiran u qabsadaan gobolada qaarkood walow ay meelo kala gedisan oo gobolkaasi looga cararay Axmaarada. haddana waxa la arkayaa mararka qaarkood ciidamo leeyahay waa is soo dhiibeen oo waxay ka tirsanayeen Axmaarada adkaysi la'aan ayaana lagu dhaliilaya. si kastoo ahaataba dagaalkan ayaa loo maleynayaa inuu noqon doono dagaal weyn oo ka qarxa waqooyiga kaas oo markaasi la ogaan doono cidda ay guushu raacdo. Abiy Ahmed iyo taliskiisa oo awalba dhaqaale darro iyo xiisado la tacaalayay ayay tanna waxay u tahay waa cusub oo hor leh oo bari